shacabka harawana iyagaaba horumarka u helan dhammaanna waa dadkeenni wax qoomiyado kala duwan oo galana ma jiraan halkan waa magaalada Dharwanaaji ee degmada Harawa ee dowladdeegaanka Soomaalida waxa maanta soo dhaweynta ugu baahan loogu sameeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi Maxamuud Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Xaaji Qaasin iyadoo subaxnimada hore saaka bulshada ku dhaqan magaaladaasi ay ku waabariisteen u diyaargarowga soo dhaweyn baan loo sameeyo wafdi hogaaminaya gudoomiyaha cusub oo ka soo boqolay dhinaca caasimadda Jijig ee dowladdeegaanka Soomaalida kumanaan ka mid dadweynaha magaaladaasi ayaa isku soo baxay wadooyinka halbowlaha ee magaaladaasi kuwaas oo helana soo dhaweynta gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay iyo war ku dhawaaqay ereyo soo dhaweyna isla markaa tan inuu leeyahay caleemo qoyan مسؤولين hogaaminayay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Harawa Maxamuud Sheekh Cabdiqaadir ayaa markay soo gaareen magaalada Dharwanaaji waxay soo dhaweynta ugu baahan kala kulmeen dadweynaha deegaankaasi oo saaka u helanaa soo dhaweyntooda iyadoo intaasi kadib munaasabad balaaran oo xilka kula wareegayeen gudoomiyihii hore degmada Harawa Yaxya Cilmi Caamir iyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmadaasi ay ka qabsoontay dugsiga sare ee magaaladaasi waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi goobjoog ah mas'uuliyiin ka socday gobolka Faafan ee dowladdeegaanka Soomaalida maamulka degmada Awbare salaadiin waxgarad aqoon-yahano iyo wafdi ka socday dhinaca Somaliland ugu horreyn wax munaasabadaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka socday gobolka Faafan iyo gudoomiyaha degmada Awbare kuwaas oo soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada Harawa isbaataan si sabootay gudoomiyaha hore waxa sharaf ah inaan maanta aan joogo xafladan qiimaha badan ee ay xilka kula wareegayaan gudoomiyaheenii hore Ruucada mudane Yaxya Cilmi Caamir وكنا وريتينيو wiilkiisa daada yar mudane Maxamuud Sheekh Cabdiqaadir Xaaji Qaasim waad garanaysaa waa dhal awliyo waa nin dhalinyaro oo karti badan adeer Yaxya wuxuu ahaa Ruucada qiimo badan for the last 20 years oo gobolkeennan iyo madaqadan degmada Harawa weyn qiimo ballaaran ku lahaa سيال تاريخي ذو قيمة فضلنا له وحنقول هذا علينا يا مدن يحيى إنه ها وأن مرقوها هاي ربعة سمية كابيال قيمة بدن إنفراستراكشر كنا واحد بدن كقبتي السدا دسمياش يسكون له دومي هوري صاحب كيحيى أو يسوقنا ها هرمود كيجي ها وحوها قدوميها صدح الدقمة وها صدح الدقمة دنبل هروا يوبره همبليو aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno gudoomiyaheena cusub mudane Maxamuud Sheekh Cabdiqaadir waxaana leenahay waan garab taaganahay waana la shaqeyn doonaa intaas kadib waxa isdaba qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda xilka kula wareegayeen gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay oo ka mid ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanadii diwaan laga doortay deegaankani wuxuu igu yidhi marka uu baqtiyo haynu salaf hayno wala riixaa 8 qof arrinta noogu daran bay ahayd Cabdillaahina uu ogaa maamulkana waa ogiin nasiib wanaag annagu gaadhigii halkii baan iska dhignay degmada Awbare oo la magacaabin gaadhigeygii baan soo raacnay waad ogeeyeen Soomaa degmadu hal ambalaas ma lahayn kii goobtay oo burburay gaarash ku jiray uu rogmaday 3 ambalaas baa yimid gudoomiye intaan annagu joognay maanta gaadiid shaqada lagu qabanayo halkii gaadhigii 8 qof riixaysay waxa yaala intaas oo gaari oo sheey garay sixiya yaala marka khayraad badan baa degmada yimid annagu waxaan ugu nimiday miisaaniyada degmada oo heega lagu shaqaaleeyay dib baa loo qorsheeyay degmadu miisaaniyad ma laha kaabitaala waa degmooyinka shaqaaluhu inta badan maadaama dadkeenu wax bartaan halkan iyo Awbare shaqaaluhu ku raan wax bulshada loogu adeego miisaaniyada male annagu xilligaas adna waxa timiday xilli la soo afsaaray la qorsheeyay miisaaniyadii BSMB miisaaniyadii LRRB shaqada declaration intaasoo miisaaniyadood oo marka ay wadadii ugu dhibta badnayd degmada Harawana ku jirto oo 36 milyan loo qabto haddana la bilaabay adigana saxay doona waa tii ugu dhibta badnayd marka xaalad fiican iyo waqti fiican shacabka Harawana iyagaaba horumarka u helan dhammaanna waa dadkeenni wax qoomiyado kala duwan oo galana ma jiraan annagu haddaan reer wanahay horumarka sii gaarayaan waxaan baxnay markaan labada gudoomiye la isku wareejinayo maanta way dhisan tahay markii hore ee gudoomiyaha loo soo magacaabay waqtiga taykii weyn markan iska daayo meelna meel ma haysan
siduu sheegay way kala daadsaneen laakiin maanta gaadiidkiina wuu loo yahay horumarkiina sidiisiiba uu socdaa marka rajo fiican maanta baabuurta halkaa taagan ee boqolka baabuur ee loogu soo dhaweynayey maalintii hore ma ay joogin maantana waad arkaysaan horumarka ka muuqda shaqada ka muuqata yaxya waxa badan buu qabtay waanan ugu mahadnaqaynaa waxqabadkiisii hore maamulka ilaahay baa maartaa waa la isku beddelaa camalku xagga ilaahay buu ka yimaadaa maamulka cusub ninka lagu soo beddelayna dadkii xaaji jibriil xaaji qaasim buu ka joogaa isagana rajo fiican baan ka rajaynaynaa waxaan u hambaliyaynayaa guddoomiyaheena cusub ayaan u hambaliyaynayaa maxamuud waxaan leeyahay hambaliyo ayaan ku jeer leeyahay ku soo dhowow dadkaagii oo ku jecel baan leeyahay aqoontaadii baa lagaaga baahan yahay inaad ku hoggaamiso dadkaagii baan ku leeyahay waxaa lagaaga baahan yahay inaad daacadnimo aad ku hoggaamiso ayaa lagaaga baahan yahay dadkaaga wax badan bay tabayaan waxaasoo dhaniba adiga ayay ku sugayaan baan leeyahay guddoomiyaha hawl badan baa u taalla ayaan leeyahay sidoo kale halkan waxaan dhahday iyadana aan hambalyo aan u dirayaa guddoomiyaheennii yaxye waxa weeyaan sida horeyba loo soo sheegay cuqaasheenna ugu weyn siyaasigeenna weyn weeyaan aynu ognahay haddana wuu ahaan doonaa ma aha wuu ahaan jira haraba anigu waxaan u aaminsanahay inay gobol tahay maxamuud aniga waa in adeerkay waana saydigey waxaanu walaalnahay walaasha hinda cadoo shaare iyo maxaan ku dhahdaa farxiyo xaaskiisa gurigiisaan deganaan jiray maxamuud wuxuu ka mid yahay dadkii bilowgoodii aanu maad aragtay gaboodka ku ahaa gurigooda aqalkiisaan deganaan jiray wakhti dheer bay soo hayay laakiin maamulka kama hor dhacayo weli hadda degmaan taagannahay laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gobol gaadhno insha Allah waxaan leeyahay istaageersi bay laba gamcood tabar ku yeeshaan tixda waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidix hadday midigtu soo taagan tahay tahar ma goyseen haddii aynaan tugadar u wada shaqayn meel gaadhi mayno laakiin haddaan wada shaqayno oo aynu isgarab istaagno halkan iyo boorama laamay baan ka dhigi karnaa inagoo cidinayna taageerin ugu dambeyntii waxaa ka hadlay munaasabadan oo haymi seersay loo soo agaasimay guddoomiyaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay degmada harawa maxamuud sheekh cabdiqaadir sheekh xaaji qaasin waxaan uga mahadnaqay dadweynaha degmada harawa sida badan ay u soo dhoweeyeen isagoona halkaasi ka ballan qaaday goobtan ilaahaasa maxad u sugnaatay marka labaad maanta aniga hadal badan la igama baahno sababtoo ah shacabkaygiioo saaka soo bannaanbaxay saaka soo dhowayntaydii u soo baxay ilaa saacaddaan taagannahayna qorraxda taagnaa awgeed ayaana maanta hadal badan aan halkan ka odhanaynin anoo shacabkayga ixtiraamaya cadceedda taagan laakiin waxaan idin sheegayaa guddoomiye yaxya oo ah rugcaddaa oo degmada horumarka badan ka fuliyey horumarkii socdayna bartankaa kaga soo aadnay waxaan annaguna sii anba qaadi doonnaa dadaalladii horumarineed ee ka socday degmada ayuunba sii anba qaadi doonnaa waxaan u baahannahay markaa shacabkan maanta sida quruxda badan loo soo dhoweeyey ee goobtan munaasabadda ballaadhan iyo waddada laga hor yimday waxaan uga baahannahay sidaa ay noo soo dhoweeyeen oo quruxda badan inay noola shaqeeyaan mustafi calaale magaalada dhanawraaji degmada harawa ee dowladdeegaanka